hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo galabta soo gaaray magaalada Nairobi ayaa kulan qarsoodi ah kula qaatay hotelka Four Points ee ku yaala xeyndaafka garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi xubno ka socda dowladda Imaaraadka Carabta. Qorqor oo weheliye wasiir dowlihiisa Cumar Shido ayaa diyaarad khaas ah ka soo qaatay magaalada Muqdisho maanta. sida ay adduunka TV u xaqiijiyeen ila muhiim ah wuxuu la kulmay adeegaha idman ee Imaaraadka Carabta ee arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika Hussein Darwish Al-Shamsi kaasoo inta badan heshiisyada la gala siyaasiyiinta Soomaalida ah ee ku xiran isutaga Imaaraadka Carabta. kulankan waxaa la sheegay inuu soo agaasimay ganacsada Liibaan Tahliil Warsame oo la sheegay inuu inta badan u dhaxeeyo siyaasiyiinta Soomaalida ah iyo dalaaliinta Imaaraadka Carabta. kulankan oo markii hore la damacsanaa inuu ka dhaco magaalada Djibouti ee waddanka Djibouti ayay ka cudur daarteen Imaaraadku waxayna dalbadeen in Nairobi la isugu yimaado iyadoo Qorqor loo sheegay inuusan soo wadan wafdi badan maadaama uu kulanku qarsoodi yahay. dad la socday bilowgii arrintan ayaan ka soo xigeynay in Imaaraadku doonayaan inay dhisaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb. sidoo kale waxaa jira qorshe Qorqor iyo maamulkiisu ugu wareegayaan dhanka isutaga Imaaraadka Carabta kaasoo socday dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. xoguhu waxay intaa ku darayaan in Qorqor balan looga qaban doono madaxda sare ee Imaaraadka Carabta oo uu booqan doono Dubai kulankan mid ka xiga si arrimo badan la isula meel dhigo. waxaa kaloo arrimaha muhiimka ka mid ah in lacaga ay Imaaraadku ku bixin jireen xero ciidan oo ugu taalay Muqdisho in loo wareejiyo dhanka Galmudug halkaas oo uu wasiir ka noqday mid ka mid ah raggii haystay qandaraaskaas. hogaamiyaha Galmudug ayaa la sheegay inuu aaminsan yahay inuu maamulkiisu yeelan karo miisaan la mid ah midka Jubbaland iyo Puntland haddii uu ku xirto Imaaraadka Carabta. sidoo kale qorshihii Imaaraadku ka lahaa Galmudug oo markii hore shaqayn waayay ayaa hadda si farsamaysan loo dhexgeliyay Qorqor oo maamulkii qabsaday. waxaa jira kulan kale oo isna caawa Qorqor la qaatay siyaasiga Cabdikariin Xuseen Guuleed kaasoo diiradda lagu saaray xilliga kala guurka iyo arrimaha doorashooyinka iyadoo la filayo inuu Guuleed ka mid noqdo musharaxiinta xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota. xilliga uu Qorqor soo aaday kulanka Imaaraadka ayaa dad badani ku fasireen siyaasad xumayaab leh inkastoo la sheegayo in Imaaraadku ugu talagaleen inay ka dhaadhiciyaan inuu ku aragti noqdo madaxda Puntland iyo Jubbaland inta uu socdo shirka Muqdisho. filla Soomaaliya oo aan la xiriirnay si aan arrintan wax uga weydiino ayaa ku gaabsatay ogaanshaha kulanka balse ma aana bixin faahfaahin ku aadan siday u arkaan. rajada ay Galmudug ka qabto inay dowladda Qatar dhiso dekadda Hobyo ayaa hoos u dhacday waxaana loo arkaa inay arrintaasi ka mid tahay waxyaabaha soo dadejinaya inay Galmudug ka fakarto jiha kale oo ay ku tiirsanaan karto dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan. dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa waqti badan gelisay inay Qorqor ka dhigto madaxweynaha Galmudug iyadoo qabatay doorasho aan loo dhammayn laakiin lama oga ilaa inta ay hadda ku qanacsan tahay tallaabooyinka ay qaadaysa Galmudug tii oo ay jirto in dowladda madaxweyne Farmaajo ay aad ugu xiran tahay dowladda Qatar. madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku ballansan inay ku shiraan Muqdisho si looga heshiiyo xilliga kala guurka ah. maxay kula tahay adiga sidee se u aragtaa inay Galmudug u wareegto dhanka Imaaraadka Carabta?